ابتدى uga bixiso casharka macadka diblomaasiyadda oo in muddo ah runtii aan soo wadnay aniga qaybtayga aadan waxay tahay mar walbo in aan tababarayaasha tuso waxyaabaha dibadda inooga imaado inta badan la xiriiro xiriirka caalamka siiba midowga Europeanka maadaama takhasuskayga xoogiisa dhankaas uu yahay jaamacadda ama jaamacadaha aan wax ka dhiganay dhankaas aan wax uga dhigo marka taas aan xooga saaraa runtii waxa waaye in bal maadaama waddankeenana waxa waaye saameyn badan ay ku leeyihiin bal horta qofka ku imaanayo inaad horta wax xog aad ka haysto horta qofku waxa uu yahay taasa marka aniga waxa waaye saddex cashir ayaa marka isku daya inaan ku soo koobo maadaama barashada waxaan ay yiraahdaan European Union ama EU Studies ama EU Politics uu yahay runtii takhasus weyn oo jaamacadda aan ku dhigno oo bachelor ilaa master ilaa PhD lagu qaataa marka waxaan isku dayay waxyaabaha ugu muhiimsan adinkana wax idin taraayo shaqadiina aad idinka caawinayo runtii waxa waaye in waxa waaye aad fahantaan marka xooga waxaan saaraa in cashirka koowaad uu noqdo wax iska historical context horta sababta qofka haduusan fahansaneen waxaan meesha ay ka yimaadeen way ku adkaanaysaa runtii waxa waaye in waxa hadda taagan uu fahmo marka historical context-ga inta badanna waxa aan xooga saarnaa markaas isla cashirkaas la socdo waxyaabahan ay yiraahdaan common foreign and security policy maadaama Europe ay taas ay ka midaysan tahay runtii waxa waaye hal waji ay caalamka ay wada dhaqmaan hal codna ay ku leeyihiin hadda tusaale kale Soomaaliya marka laga hadlayo EU Cup ayaa joogo badaha waxyaabahaas ka hadlo tababar dadka siiyo EUTM waxa la yiraahdaa jiro EU NAFOR ayaa jiro piracy-ga loo keenay waxyaabahaas oo dhan bal in waxa way wax aad ka fahantaan iyo siyaasadda arrimaha dibadda guud qaabka waxa way u jaango'san tahay dadka ku lug leh waxyaabahaas oo dhan midda labaad waxa way waxyaabahan ay yiraahdaan common security and policy oo ah security gooni ayuu waxa way asagana xoog u leeyahay taasna waan sameynaa oo common defense and security policy difaaca iyo ciidanka in la fahmo iyo mid saddexaad u dambeeyo ah wajiga ay ku yimaadaan waxayna yiraahdaan normative power maadaama powerka markii la sharaxayo military kaliya iyo dhaqaale kaliya maaha mararka qaarkood waxa arkaysaa qofka in norm iyo values-kiisa uu rabo in waxa waaye uu ugu dirqiyo wadamaana runtii caan ku ah waxyaabahaas sida hadda Sweden oo kaleete aad waxyaabahan governance-ga la xiriiro doorashooyin in la qabto human rights-ka waxyaabahaas marka soo hoos galay marka waxyaabahaas oo dhan guud ahaan in bal aad fahantaan si marka shaqooyinkiina marka ugu noqotaan haddii idin yimaadaan aad context-ga idin kala hadlayaan iyo meesha ka imaadaan iyo waxyaabaha ugu yaraan xataa ay idin ka rabaan inay idin kala hadlaan bal aad sawir uga qaadatid marka waa mahadsantiin aad ayaan ugu faraxsanahay inaan tababarkan idin kala soo qayb galay insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waana wadi doonaa in waxa waaye macadka macallimiintiisa aan ka sii mid ahaado tababarkan waxa waaye aan xoojin waad mahadsantiin salaam alaykum